maamulka Hargeysa miyay ka waantoobeen gogoldhaafkii siyaasadeed ee kula kaceen deegaanka Soomaalida maxay yihiin xaqiiqooyinka ay shalay jijiye kala kulmeen ee ku kalifay inay candhuuftooda dib ugu margadaan dib dambe miyay ugu daqiiqami doonaan faragelinta qadiyadaha DDS maxayse yihiin qadiyadaha lama taabtaanka ah ee ayna ku gurgurtamin dadka reer DDS balse ka qarsoon reer Somaliland iyo maamulada kale ee Soomaaliyeedba dhammaan weydiimahan ayaynu ku bashaaqi doonaa tabintan anigu waa Axmed Awga halkanina waa JTN ee soo dhawaada jaalayaal dhigana lama ilaawaan ah oo safxadaha ugu dambeeya sanadkan 2024 ugu qormay maamulka reer Hargeysa ayaynu ku macnayn karnaa riya maalmeedkii dhalan hababiskii cantarabaqashtii iyo ismoodsiiskii ay maamulka abaydinka ah Hargeysa kula soo daqiiqameen xuduudaha iyo qadiyadaha DDS taasoo kaliftay inay afka furtaan cantarabaqashtana saydhaan wixii afkooda soo mari karaba garanna waayaan farqiga u dhaxeeya wada dhalashada iyo tixgelinta xuduudaha darisnimo mana aan rabo inaan ku dheeraado gogoldhaafkii siyaasadeed iyo falaadkii qalqaalinimo ee ay maamulka Hargeysa ku ijaafeeyeen dawladnimadii iyo darisnimada deegaanka Soomaalida oo waynu ka wada dharagsannahay kolkii ay shalay aroorbees ku soo shubeen madaxtooyada DDS ee jigjiga waxa ay maamulka Hargeysa halkaasi ugu yimaadeen Ethiopia ka duwantii ay filayeen oo ka kooban maamulkii xukuumadda deegaanka Soomaalida oo ay ku sidkan yihiin xubnihii matalaada dastuuriga ahaa ee dalka Ethiopia iyo DDS ku matalayay shacabka xarshin iyo dacawalay iskuguna jira wasiiro iyo xildhibaano waana halkan meesha ay candhuuftoodii dib ugu liqeen kolkii la weydiiyay walaalayaal reer Hargeysow xarshin iyo dacawalay waa DDS maxaydu la neeftuuri oo aanu idinka dajinaa kol kalena walaalayaal Somaliland taano aqoonsigeena la raadinayno miyay ku jiraan xarshin iyo dacawalay ama daroor iyo harta sheekhuba maya iyo waxba ay noqotay jawaabtu intaas kadib waxa maamulka Hargeysa si nasteexale loogu tilmaamay walaalayaal deegaanka kala baxa ciidamadii iyo teknikadii ku soo daqiiqantay shalay ilaa maanta oo walaalayaal xadka waanu xidhanaynaaye darisnimo iyo walaalnimo haynaga dhaxayso waxbana idinma raacanayne intii gogoldhaafka siyaasadeed ahayde xidhi baraka leh arrinta dacawale iyo xarshinna dib dambe yaanay hurdadeeda idinka qasin idinka idinma taalle nabadna kullada walaalayaal maamulka Hargeysa kolkii ay sidaas ugu guri noqdeen Hargeysa waxay fuliyeen qorshihii la isla qaatay oo ahaa inay deegaan kala baxaan qulqulkii ciidamada iyo teknikada ku soo daqiiqamay iyo inay ka dheeraadeen xadka naaqusaan oo hoos u dhigaan cantarabaqashtii iyo jaafooyinkii ay ku hayeen DDS waliba waxay intaasi ku dareen inay xabsiga dhigaan saraakiishii sarsare ee u soo gurguuratay ciidankana ku soo daabulay DDS halkaas ayuuna ku xidhmay galkaasi waxaana la filayaa inay tani cashiro miyirin oo muhiim ah iyo koorsooyin qaali ah u noqotay maamulka Hargeysa hadeedna ay ku ekaan doonaan xadkooda darisnimo wanaagga salaantii gacaltooyo iyo walaalnimadii ixtiraam ku dhisneedna ay u hayaan DDS calanka ciidanka iyo xuduudaha dhuleedba waa qadiyadaha ugu waaweyn ee ayna ka gorgortamin reer DDS lama taabtaankana ah dhammaan qabaa'ilka Soomaaliyeed ayaa degan kuna nool DDS oo ku midaysan dawladnimada iyo calanka iyaga ayaana wada ilaashada oo indhaha ku haya xuduudaha dhuleed ee deegaankooda waana midan qadiyada ay inta badan ka ilduufaan reer Somaliland iyo maamulada kale ee Soomaaliyeedba